jahwareer ayaa ka taagan nooca maamul ee gobolka Banaadir looga baahan yahay iyo doonista shacabka degan oo kala qaybsanaan awoodeed ay la daristay burburkii dawladii dhexe ee Soomaaliya kadib. gobolka Banaadir maamul ahaan bariisamaadkii waxa uu hoos tagi jiray wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo uu ku lamaansanaa hoggaanka qaar ka mid ah ciidanka sida booliska iyo nabad sugidda. xitaa gobolada kale caasimadda ayaa laga maamuli jiray. awooddaas colaadii dalkan uu soo maray ayaa gaashaanka u daruurtay. qaska amni ee caasimadda Muqdisho ka taagan yaa sabab u ah. Cabdullaahi Maxamed Geedi Bakad oo ammaanka ku dhawaad 30 sano ka faaloonayay ayaa ka jawaabaya. 18 degmo waa 3 gobol iyo waliba degmo. waxay u baahan tahay marka horta xamar in la dhiso, cid lagu xisaabtamo la dhiso, degmo iyo xaafad kasta la dhiso. awoodii dawladdu ay xaafadaha iyo degmooyinka ka shaqeyso. dan markaas kadib security-ga la sugi karaa. laakiin hadda dawladii iyo security-ga isla daalan dhacaya. horta waa inay dawladdu adkaataa oo security-ga laga adkaadaa oo nabadgelyada laga adkaado. dhibka taaganina waxa weeye مثلا بحافظهان marka jidkan hadda aynu ka hadlayno oo Makka Mukarrama marka la dhaafo xaafadaha intooda badan ciidanka dawladdu way ku yariyeen habeenkiina lama garanayo cid xukunta rag baa hub iska wata oo dadka dhaca waxa jooga qolo kale control ma laha waxaana waxay u baahan yihiin controlka markii la sugo kadib yaa laga hadli karaa amniga iyo security-ga iyo seelayela iyo hoos timaada gobolku iyo mas'uulka iyo dhacdooyinka gobolka ma waxa mas'uulka nabad sugidda ma waxa mas'uulka gudoomiyaha gobolka iyo commissionerka booliska oo gobolka Banaadir yaa mas'uul nabadgelyada asliyan uga ah. nabadoon Maxamed bin Cali Unsane ayaa qaba in hadii Muqdisho horumar la rabo laga dhigo maamul goboleed. waxaan ka dalbanayaa in xamar uu noqdo maamul goboleed oo hoos yimaado gobolka Banaadir sababtoo ah amnigii iyo wixii oo dhan waa inuu gacanta ku hayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir si sharci ahaan mas'uuliyadiina asaga uu qabto asaga in laga dambeeyo amarna asaga ka bixiyo oo nimadan saasay ku imaanayda madaxweynaha iyo barministerka uu sheegay taasoo ay tahay midnimo iyo mid lagu farxo go'aankaas in la waafajiyo taasaan ka codsanayna madaxweynaha go'aankaasna in ay si degdeg u dhawaaqaan. teeba wanaagsan amni ahaan in Muqdisho maamul goboleed ay ahaato iyo in xaalku uu sidan sii ahaado waxa faahfaahin amni bixinaya Cabdullaahi Maxamed Geedi Bakad oo ka faalooda ammaanka. waxa wanaagsan gobolka Banaadir in looga dambeeyo laakiin gobolka Banaadir wuxuu u baahan yahay Banaadir 3 milyan oo qof baa ku nool. gobolkii ma dhisna yaa maamulaya marka gobolkeedu horta marka hore waa in gobolka Banaadir dhisaa. Puntland 3 milyan oo qof kuma noola. Somaliland kuma noola. Jubaland kuma noola. Koonfur Galbeed kuma noola. Galmudug kuma noola. 3 milyan oo qof halkaan ku nooshahay. 3 milyan oo qof waxay u baahan yihiin maamul in loo sameeyo si nabadgelyo loo sugo. Muqdisho waa magaalo ay ku nool yihiin in ka badan 3 milyan oo qof sida la sheego. ma jiro shakhsi ka mas'uul ah ammaan darrida ka taagan caasimadda Soomaaliya. sidoo kale gobolka Banaadir dhowr isku day ayuu u sameeyay in amniga la hoos keeno dawladda hoose ee Xamar. taasi ma suura gelin. gudoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed dhawaan waxa uu sheegay in 28 bishan la qaban doono shirka amniga iyo horumarinta gobolka Banaadir. waxaan rabaa sidoo kale fursadda inaan uga faa'iideysto shirkii dib nooga dhacay ee shirkii wada tashiga nabadeynta iyo horumarinta gobolka Banaadir. insha Allah waxa la qaban doonaa oo dhici doona 28 bishan Janaayo haddii Ilaahna gaarsiiyo. shirkaas ma waxa ka soo bixi doona in Muqdisho la yiraahdo waxa loo gogol xaarayaa inay noqoto maamul goboleed mise waxa haboon in xaalku sidan sii ahaado. haddii xaaladdu sidan sii ahaato qaar ka mid ah shacabka Muqdisho waan la hadalnay waxay aaminsan yihiin in amniga aysan waxba iska bedeli doonin iyo isla xisaabtan la'aanta ka taagan waxyaabaha ka dhacaya magaaladan ee dib u dhacyada iyo ammaan darrida ay ka tahay. Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.